السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa walaashiin Umu Mansuur. maanta waxaan rabaa videogan waa video waxaan ku talagalay gabdhaha walaalahay inaan ku wacyigeliyo oo ma aragtay maadaama aan daacadnimada ay aad iyo aad noogu soo badanayso dumarka Soomaaliyeed hadaan nahay. marka soo dhawaada videogan waa video yar oo ma aragtay wacyigelin ah, qofna ulama jeedo, qofna kuma dhaga hadlay. soo dhawaada gambarkiina soo qaata videogan yarka aan isku wacyigelinayna. please and please YouTube channelkayga data markii kuugu horeyso like-ta, commentiga iyo share-ka intaba nagu caawi, hanaga baqiilin, waadna mahadsantahay. share-ka intaba nagu caawi, gabar walaasha ayaan ahay, waxba kaama dhibeysa, anigana wax badan ayay ii taraysaa. YouTube-kayga inuu hore u socdo oo dad badan igu soo biiraan ayay ii fududeynaysaa. intaas nagu caawi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada gabdha waa walaashiin Umu Mansuur. maanta waxaan rabaa mowduuc aad iyo aad muhiim ah inaan ka hadlo. mowduucaas oo ah gabdhaha Soomaaliyeed inta badan ay aad u sameeyaan wax xumaan ayadoo ka ahayn ay ka tahay yacni daacadnimo, maaragtay kalsooni ee qofka kale walaalkiisa markaas hortaagan ay ku kalsoon yihiin ama ay ka rajeynayaan kheyr fara badan ay ku tuhmayaan. mowduucan arrintaas ayaa igu kaliftay inaan ka sameeyo. ma ka wado maaragtay inaan qof ula jeedo ama ma ka wado inaan qof ku duraayo, laakiin waa mowduuc aan jeclaaday inaan ka hadlo. aad iyo aadna aan u arkayo muhiim inay tahay inaan iska wacyigelino, sababta mar walbaba maaragtay dad walaalaha nahay waxaana fiican mar walba qofka kale wixii uu wanaag u arkayo inuu u sheego. sidaa ogtihiinba maadaama ani ahay gabar youtuberada ama maaragtay tiktokerad ah oo dad badan ay maaragtay aan isnaqaano, dad badan gabdho badan ay la soo xiriiraan, gabdho badan ay talooyin i weydiiyaan, gabdho badan ay waxyaalo aad iyo aad qaas u ah oo muhiim ah ay la wadaagaan. marka social mediaha inta hadda maadaama maaragtay gabdho fara badan ee maaragtay sheeg ka tahay maaragtay daacadnimo iyo maaragtay qofka kaleeto walaalkood maaragtay kalsooni ay ku qabaan, ayaa igu kaliftay mowduucan inaan ka hadlo. waa mowduuc aad iyo aad xasaasi u ah. waa mowduuc aniga aan u arkay inaan ka hadlay inay muhiim tahay oo wacyigelin aan ka sameeyo. sababta maanta markaa social media fiirisid ama markaa gabar walba aragtid dhibaato ku dhacday, dhibaatadeedaas waxaa gudbiyey waa gabar kale oo ayada ay la wadaagtay ama gabar kale ee ayada wax u sheegatay ayaa ka mas-uula in gabadhaas maaragtay dhibaatadaas ay ku dhacday. oo dadka hadda jiro dad lagu wada kalsoonaan kara ma ahan, dadka hadda jiro dad la wada aamini kara ma ahan. waa dad aan ilaahay ka cabsanaynin, waa dad maaragtay kalsoonidii aa siisay iyo maaragtay walaaltinimadii aa u aamintay aan garashadeeda lahayn. qof walbana inaa aamintid ani ahaanteyda waa wax aad iyo aad looga fiican yahay. sababta qofka wuxuu yahay ma ogid. qofka maaragtay haddii lacala aabataa gabar ka baratay social media oo kaleeto, yacni ana hadda maanta Umu Mansuur gabdhaha maaragtay qadka iga bartay ama gabdhaha YouTube iga yaqaano isku wadan aan deganayn ama si shaqsiyan i yaqaan waxba igama taqaanin. qof meeshaas iska soo fadhiya iska daldalmaya ahay, xumaanteyda iyo samaanteyda ma taqaanin. marka qof aadan aqoonin inaad sirtaada u sheegtid oo waxyaalo adi maanta hadday banaanka usoo baxaan dhibaato aad iyo aad u weyn ay kaaga imaan karta inaad la wadaagtid, ani ahaanteyda ma ila fiicno. sababta maanta gabar walba oo cabaadaysa ama gabar walba oo dhibaato ku dhacday waxaa ka gudbisay gabar kale ee u sheegatay ama gabar kale walaaltinimo ku aamintay ee ku kalsoonaatay. marka kow qof bili-aadan oo ku kalsoonaan kartaa, qof wax waa u sheegan kartaa, qof talo waa weydiin kartaa, laakiin qofku waa inuu qof aqoon dheeraada u leedahay, waa qof ama aragtay diin aa ku dooratay iyo akhlaaq. sababta qofka markuu diin leeyahay diinta ayaa kaa celinayso, because ilaa alla ka cabsi ayaa maaragtay qalbadiisa ka buuxdo. qofka markuu ilaahay ka cabsanayo qof kale oo walaalkiisana ma dulmiyo, qof kale oo walaalkiisana dhib uma geysto. because inta badan Soomaali hadana alka cabsiga aad iyo aad ayuu noogu yaray, qaasatan dumarkeena alka cabsiga waayahan aad ayuu noogu yaraaday. taas ayaa keenaysa gabar walba markay gabar kale sir u sheegato ama gabar walba markay gabar dhib la wadaagto inay gabadhi kasii faafiso ee gabdho kale u sheegto ay noqdaan wixii ayada qalbadeeda ku heen weysay. Soomaalina hore waxay u dhahday hadal intuu afkaada ku jiro ayuu ammaan leeyahay. maanta Soomaali hadana waxyaalo aad iyo aad u waaweyn ayaa la iska soo qarxinaya, waxyaalo aad iyo aad u waaweyn ayaa la iska sameynaya.
sidaasaa markii igu kaliftay inaan mawduucan ka hadlo inaa idin dhaho abaayooyin oo maaragtay qofka wax u sheeganaysiin ha noqdo qofa aqoon dheeraada u leedahay qof aad taqaanid qof maaragtay aad ku kalsoon tahay qof aad diin ku tuhmaysid qof aad maaragtay dee alla ka cabsi fara badan aad ku og tahay laakiin qof walba aragtid haddaad sirtaada la wadaagtay ama qof walba aragtid haddaad la tashatid dhibaato aad iyo aad u fara badan ayaa ka imaanayso dhibaatadaasoo ah maaragtay dhibaato aadan adiga berito xal aadan u helaynin maanta soomaali haddaan nahay waxaa soo bateen dad soomaali nala ah muslim nala sheeganayo hooyooyin ah oo xataa ku dhahayaan cunug muslina oo soomaaliya oo dhibaataysan hadday wadada ku arkaan gaalaha u waceenaa ama gaalada u sheegaynaa ama waxaan leenahay cunuga meeshaas jooga wuu dayacan yahay ama cunuga meeshaas jooga caawitaan u baahan yahay heerkaas ay maanta dadkeeni ay marayaan heer ay maanta gabar Soomaaliyeed oo dhibaataysan hadday arkaan xataa ay ma aragtay dhahaan gaalaan wacaya oo mas'uuliyada ay ka saaran oo sharciga ay qabanayo oo sharciga ay faraayo inaan qofkan dacweeyo ay dhahaan marka maxaad ka filaysaa gabar saas u fakaraysay haddii lacal ay kugu noqoto oo sirtaadi ay ku aamintid oo ay ama social media sirtaadi keento ama ay wadanka joogto gaalada kugu dacweyso ay ku sheegto meeshaas adiga qasaaro far badan kala kulmaysaa hooyo ayaa taa dhibaato far badan ayaa ka soo gaarayso marka fadlan gabar walaaltinimo ay iga tahay igama ahan inaa maarta qofna ku dhaga hadlaayo igama ahan inaa qofna wax la maarta la beegsanayo ama qofna aan xumaan maarta uusan lahayn aan ku sheegayo laakiin wacyi gelin ay iga tahay ani in la hadlaayo way jiraan gabdhahan ku kalsoonahay way jiraan gabdhahan wax la wadaago aan wax la wadaagi karo laakiin waxa qofka la wadaagaysid waa inaa marka horeeto miisaanka saartid waxaan lacal haduu banaanka u baxo dhibaato ilaa intee leeg ayaa kaaga imaan karto wax ay aribiri dhibaato weyn kaaga imaan karto oo laga yaabo caruurtaada kale ku saabsan ama xaajigaada ku saabsan oo laga yaabo gurigaada inuu ku burburo ama laga yaabo ubadkaada maaragtay inay adiga ubadkaada la idin soo dhex galo hadaa qof la wadaagtid de adiga maaragtay qofka inta u tagtaa waxa dhaado hoo mididan qaaday igu biray marka qofka marka wax la wadaagayso horta su'aal isweydiin lacal qofkan waa bili adiga ma aadan dhalin waa qof bili aadan waa qof saaxiibtihiin waa qof is aqoon idinka dhaxeyso ama qof saaxiib la tahay hadii lacal uu sirtaan banaanka u saaro aniga maxaa igu dhici karo maxaa ila soo gudboonaan karo waa ina isweydiisaa mar allaal marka sidaas u fakartid waxa ka ku fududaanayso hadalka afkaada ka soo baxay ina miisaantid iyo dadka wax la wadaagaysid ina aad iyo aad u miisaantid oo aad iyo aad uga taxadartid sababta zamanka hadda aan jirno waa zaman dadka xumaanta ayaa badatay faxishada ayaa badatay alla ka cabsigina aad iyo aad ay u yaraaday gabdho waxa arkaysaa maanta dhan ku dhahayaan is haystaan is dacweynayaan is daba ordayaan is caynayaan adduunyadana hadda xasadkii batay waxa batay maaragtay dadkii waxba la isku quuro qof maanta wax u quuro ma jiro qof walba wuxuu rabaa qofka kale noloshiisa ayuu jealous ka yahay qofka kale wuxuu haystaa ayuu rabaa asna inuu haysto wax la isku quuro maanta haba yaraatay male hadaa ubad fiican haysatid ma lagu quuro hadaa lacag fiican haysatid gabadha kale ka lacag ka dhaqaale badan ma ku quurto hadaa ka nin fiican taa ma ku quurto hadaa waxbarasho haysatid ayada ka waxbarasho fiican ma ku quurto maanta dunida hadda la joogo wax la isku quuro ma lahan Soomaalida hadana maanta waxa la imaadeen caadooyin ama dabeecado wixii hore ka xuno oo maanta gabadha isku dhacdiin waxay rabtaa inay ku dacweyso inay gaalo ku gacan geliso in ubadkaada laga qaato inay ku dhibaateyso marka sidaa darteed waxay noqonaysaa hadalka afkaada ku jiro in allaale intuu afkaada ku jiro ayuu amaan leeyahay sidaas darteed ka